بسم الله مركوبات iyo mar labaad iyo marar badan oo aan la soo koobi karin haddii aan isnaado ad koobtaan marnaba aynan koobi karin waxa mahad dhamaanteen iska leh Allah ayna abuuray subhanahu wa ta'ala caafimaadkeenu isugu nimidayna ina siiyay quruxda maanta aan arkayana inoo yeelay qof kastaba runtii maanta sharaftiisa cisigiisa Allah siiyay ayaa markoobaad iyo mar labaad ba mahad leh mana koobi karno dhabtii haddii aan isnaado ad koobtaan waxaan leeyahay ilaahayow aad iyo aad baad maasan tahay kumanaan jeer iyo million times oo aan marnaba koobi karin sidaas lamida waxaa mahad aad u weyn aan u soo jeedinayaa macallimiinta qiimaha leh ee dhabtii inoo soo huray waqtigoodii fursadahoogii inooga yimiday si ay noogala qayb qaataan xafladda maanta aad arkaysaan iyo qalinjabiyaasha aad u jeedaan runtii iyaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin tiro kuma koobi karo in soo gaadhay inaan sugayo way leeyihiin waxa iigu horeeyoon macallimiinta ka magacaabi karo macallim Khadar ahna macallinka soo saaray macallimiinta halkan joogta badankooda dugsiga caalami macallinkiisa ah macallinka waxaan leeyahay macallinkayga aad iyo aad baad u mahadsan tahay ka soo qaybgalkaaga waa farxad weyn ayay noo tahay aad iyo aadna waan kuu soo dhaweynaynaa gacmuhu waa qalfoofay qalbiga qoyan ayaan kugu soo dhaweynaa macallinkayga soo dhaw baan leeyahay sidaas lamida waxaa kaloo iyadana indhahayga iga muuqda macallimiinta ay soo gaadhay macallin Cabdifataax ahna saaxiibadii waqtiga waxbarashada aynu soo wada marnay dugsiga halbeeg ka socda macallin aad baad u mahadsan tahay sidaas lamida macallin Cabdulfataax labaad oo isaguna dugsiga ka socda xidig waxaan leeyahay macallinkayga adiguna aad iyo aad baad u mahadsan tahay macallimiin fara badan oo dhabtii dugsiyo kala duwan ka socota ayaa hadda indhahayga iga muuqata magacaantiina ma koobi karo sidaan idinku faraxsannahayna ma aha mid aan cabiri karo waxaan leeyahay macallimiintaydii soo dhawaada aad iyo aadna waan idin soo dhaweynayaa meeqaamkiina iyo masabkiina ayaana idinku soo dhaweynayaa waanan ku faraxsannahay ka soo qaybgalka aad xafladayda nagala soo qayb gasheen mahadsanidin dhammaantiinba sidaas lamida waxaanan marnaba iloobi karin waalidiinta qiimaha leh ee waqtigoodii u soo huray dhallaankooda quruxdooda si ay u daawadaan sidaas lamida waxa weeye maanta inay arkaan midhihii ay ku tabcayeen wixii ay maanta mutaysteen ayaa iyaguna mahad aad u weyn u leh waalid marnaba looma mahad celin karo dhabtii wuxuu mudan yahay meel la gaadhsiin karaa ma jirto cid haddii ay maanta dadaal kasta samayso waalid u mahad celin karaysaayna ma jirto intii aynu ka gaadhno waynu isku dayi doonnaa waxaan leeyahay waalidiinta iyada qiimaha badan leh aad iyo aad baad u mahadsan tihiin inta timid ee ka soo qayb gashay waqtigu fursadda siiyey inta kale waayuhu u saamixi waayeba waalidiintaydiiow aad iyo aad baan idinku faraxsannahay ka soo qaybgalkiina carruurtiina midhihii ay barteenna maanta waad arki doontaan aad iyo aadna waa idiin soo dhaweynaynaa sidaas lamida waxaa kale oo aan iyaga la iloobi karin kuwa maanta aan dartooda halkan isugu nimiday oo ah qalinjabiyaasha waxaan leeyahay mar koowaad iyo mar labaad hambalyo 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 dhabtii waxa aad maanta u dhaqaaqdeen oo aad maanta farxaddiinaasi ay tahay inaad qaadeen tallaabo ka mida tallaabooyinkii mustaqbalkiina mid ka mida aanan rajaynayno kuwanan maanta idinku arkayno iyo kuwa ka badanba inaad qaadi doontaan waxaan markaa ardaydeeda qiimaha badan leeyahay dhammaantoodba ardaydaydii ay farxaddiinnii maanta weeyaan inta maanta aynu halkaa hoolka joogno wax idinka farxiyo mooyaane wax kale meeshaan looguma talagelin farxaddiinna oo keliyaynu u joognaa qof kastaa maanta farxaddiinnu halkaan u yimiday aad iyo aad baan u mahadsan tihiin waxaan idin rajaynaynaa mustaqbal qurux badan oo iftiimaya meel halkaan ka weyn inaynu isugu kulanno oo aynu isugu nimaadaan idin rajaynayaa idinma mahad celin karo idinmana hambalyayn karo shucuurtaan dareemayaana aad bay u weyn tahay waxaan idin leeyahay ardaydaydii dhammaantiinba inta qalinjabinaysay inta kaleba dugsiga handhis hambalyo saaxiibayaal marna walaalahay marna ardaydaydii hambalyo 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 ayaan idin leeyahay marti sharafta kale ee ka soo qayb gashayna aad iyo aad baad mahadsan tihiin qof kasta oonan garanaynin meeqaamkiisa iyo masabkiisa ayaan ku salaamayaa dhabtii waxaanan aad iyo aad ugu faraxsannahay ka soo qaybgalkiina waxaanan toos u gudagali doonaa barnaamijkeenna xafladda haddii allaha awoodali uu inoo ogolaado inta aanan xafladdeeda gudagelin waxaan codsan lahaa arday baa jirta inoogu jirta barnaamij riwaayad aynu jili doonno ardaydaasi xagga dambe inay igu soo dhawaadaan qalinjabiyaasha ka mid ah inay xaggaa dambe ii yimaadaan baan codsanayaa iyaga intaas ayaan ku soo dhaweynayaa ardaydaasi ha ii soo dhawaadaan oo qolkaa ha ii yimaadaan dambe ayaa barnaamijkeenna
waxaynu barnaamijkeena ku furfuran doonaa sida caadada ah quraanka kariimka ah oo inoo akhrin doono walaalkeen kamida walaalaha meesha fadhiya ahna runtii sheekh aan rajaynayno inuu noqon doono caalimka ummadda mustaqbalka aan rajaynayno inuu noqon doono midka barbaariya awlaada aynu dhali doono بدري أحمد عبد الله وقرآن كي نوقف فرفوري دونا سودو ولالكي قروح بدن هلا يلو سودو ويو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. waxaan soo dhaweyn doonaa arday laynoo jiri doonta riwaayad aynu sugayna maanta in qosolku inaga dhammaan doono insha allahu tacaala ardaydaasoo iskeen bari doonta ayaan rabaa haatan inaan soo dhaweeyo si qurux badan ha layla soo dhaweeyo ardayda si aad u qurux badan ha layla soo dhaweeyo waa ragga barnaamijka shir doona haddoo la yaabo si aad u qurux badan ha layla soo dhaweeyo qurux badan sacab ardayda ha layla soo dhaweeyo. Hello everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is very special and unforgettable day for us. It marks the end of a beautiful journey and the beginning to another journey. I would like to congratulate all of my fellow graduating students. Congratulations. My name is Mubashir Abdel Nasser Mohammed. I am very honored to be a wonderful graduating class of 2026. Let me get down to my talk about technology. In a world that moves so fast, technology connects the past. With every click and every screen, we see a world we have never seen. The internet has built a way to learn new things each single day from distant lands and distant friends. Technology helps the world connect. In schools, it opens doors, bringing knowledge to our floors. In hospitals, machines can see and help doctors carefully. Technology can save a life and help us fight against disease and strife.
In business, markets cross the land with digital tools at every hand. We buy, we sell, we work, we grow faster than we did long ago. Artificial intelligence is here, a powerful future drawing near. It helps us think, it helps us plan and changes what the world can do. But technology is not the key unless we use it responsible. It can bring progress, hope, and light, or waste our time if it is used without right. So let us learn, create, share, and use technology with density. For in this modern world, we see technology shapes our destiny. It can, for in this modern world, we see technology shapes our destiny. Technology is a power and light when we use it well and right. Let the knowledge guide the way we go and build a better world tomorrow. Finally, I would like to thank my dear teachers, parents, and everyone who supports us throughout this year. May Allah bless our dreams, help us achieve our goals, and congratulations all of us. waayahay ardaygaasi aad iyo aad buu mahadsan yahay waa ardaygii koowaad aynu ku furfurannay barnaamijkeennan markii loo yimaado ardayda qalinjabinaysa haatana waxaan soo dhoweyn doonaa gabdho yaryar oo inoo soo jeedin doona nashiido gabdhaha yaryar si qurux badan ha layla soo dhoweeyo waxaan xaggan ka salaamayaa marti sharafta ka soo qayb gashay xafladda naadka oo quruxda badan waxaana kaloon xaggan ka salaamayaa waalidiinta macallimiinta ardayda ka qalin bedelanaysa dugsiga handhis annagoo ah ardayda handhis waxaan xaggan kasoo jeedinaynaa nashiido ardaynima waa akhlaaq asluubiya waa xishood hoggaansiya waa adeex adkaysiya waa ustamir dhegaysiya waa ismaqal wax akhristiya waa dadaalka raamiya waa ammaan haddii laga helo intaa dhammaan kastaysan tahay hubaal aflax bay dhashaa ammaan weeyo cilmigu ciddii ee looga dhigo ubaadiyo sida caleen dhirto ubax lagu dadiyo gudgoon iyo midab qurxoon ahaa sida ayin waqtiga ina soo maree intaa ina dhaafaye ismaba taageogow waxaanta uga socdaa hoy isloogina dadaalo imaada oo asaagin dhaafa oo u orda sida لبن هورين يا سيدي قوي سؤال يقول عن سيدي عادي وقع عادي
شوف والله عليك شوف معاني كاكو عاية وامحا قولوا شمر بشمر في صوت ولا غير الهداء قولوا شمر بشمر عشان أو تقولوا قالوا قالوا الناس بيسألوا قالوا أنا أقول في الكوتري كارك كارك ناروني تعرفي أبو محمد راح يسافر عن أبو أبو يكون زي سوكولا كذا شيء دلوقتي بس كلام ما تعرف سنة تصور ورا كودني وتنعون وكذا أيوة كذا تنعون ولا عندنا دور هذا ولا عندنا كذا يا عوالدي وكسوق الجلياشة وبهنا كسوق الجلياشة كان في الجبر بقول رئيسي الجبر بقول فتحنا ماذا ويا هل جبر أن سولو وين يمكن الليل كيسي مركب وميرته إنما الرجال ما دي أمستنا عاد كده كليا بدي كبر بدني ورسول ساس ما والله هذا أمستنا من سوق كرسي كلا كبر ما يلا كبر ريا ويبغى لكن ميكروفون كم بدي صاحب كذا ولا شغلنا أنتي ورا النبي ده المغليني ولا تبغوا معلية صاحب مقعد واي معاذ محمد علي لمرضى يا نصيبك يا سيسكتين والله واسكت يا عم واسكت يا عم قولي قبل شيء ايوه مركي هو رسالة نصيبك كتاب مركي هو رسالة تجاري رسالة والمركب هو رسالة ترى ما أنت هو رسالة كل يوم الناس لما كان واضح لما كو فواحد واحد مش خطر ناس كتبوا أو المركب هو كتير أيوة بسم الله طبعا محمد صلى الله عليه وسلم يا وحيد الله أي شيء هذا نسيبه ما أنت ما والحاجة زي هاي بصادق صادق ما يجي بس ما شاء الله ورينا لهم يشدوا بقولنا والله بقول العالم حاضر بقول العالم وما يجي شيء بقول العالم كل شيء قال الله ما راح شد كل شيء صارت هو العصر اليوم قلت له محمد قصير ايوه انا يا روح من سلمان هاي والله اصلا thank you وسع ورا اللي يبغى هذا جالس ويقضي واي نصيب بيسوق كل الله في عمك أنا صار بحياة ما تذكر صلاة الصبح في بلاد بسم الله أيوة وقطع أيوة وبلي أنا سيد كيس يزرس ويني أيوة ورحمة وكذا قاسمان ريان أنا وحرقي أنا يجان كمل هذا أدو يوحاو بيشان وحنا كفر المشى وحاسبتا أدو يوحاو بيا أدو يوحاو بيشان الدنيا حرقات سيداتي أدو يوحاو بيشان أدو يوحاو بيشان هاي أدو يوحاو بيشان الدنيا وحاول يشتري ما قال يا الدنيا وحاول أما مصري ويقول كلمة إيه كان يتعلم كلمة واليوم الدنيا لا شاطر يسوي بس أيها كرنيا أنا وياي صديق وياي شوف صديق بس هي
الدنيا ويسوي ليس صح ويكون خطر بويا ويوم ما صدق ما هو يتوه غير يا يتوه كذا يا فرانيا يا كي هاي أنا خلص الرجال سبحان الله هذا شيء كم قرأ سيدنا وين لذا كان يا ربي معلمين تهندي سوف على إيه قاعد يقول وياي ما يدري ولا أوكي وحن صوت كنا يا هيا تاجا ولي مارك يوقف كنا دور لها ولي مارك يو وحن صوت كنا يا حمزة محمد ليك وإنه آخرين دونا قبل هو إياه سولو صح أدوم وياي حمزة محمد ليك الله يسعده وياه marka koobaad waxay mahad u sugnaatay ilaah subxaana wa tacaala inaga soo qayb geliyey marti sharaftan aadka u quruxda badan leh marka labaad waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xaggan waxaan ka salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha ay ka mid yihiin waalidiinta iyo macallimiinta anuuna kala reereebin waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin xaggan kale waxaan ka salaamayaa dhammaan ka qaljabiyaasha Handis Institute of Language waxaan leeyahay hambalyo 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 anigoo magacaygu yahay Xamse Maxamed Deeg oo ka mid ah ardayda ka qalin bedelanaysa Handis Academy waxaan leeyahay xagga waxaan ka soo jeedinayaa maansa ku saabsan hooyo macaan hooyoy macaanay hooyo hibatii mudnayday hooyo hooyoy macaanay hooyo hibatii mudnayday hooyo halkatii isiisay hooyo horaadkaygu dugaysay hooyo hooyo qaali baa tahay hooyo anigoo habaas weyn hooyo dadku wada ifaayaan hooyo hadal aanan garanayn hooyo tii ilaa hadlaysay hooyo hooyo qaali baa tahay hooyo heer dhaxaantu daran tahay hooyo hoygii aan la bixin karin hooyo haa markaan idhaahdaba hooyo horaadkaygu dugaysay hooyo hooyo qaali baa tahay hooyo hooyo waxaad ila heertahay hooyo hooyo iila dhigantahay hooyo waxaanan la heli karin hooyo hiigsi aan la garan karin hooyo hoobaan bislaatiyo hooyo hoygii jannadiyo hooyo midhahoo hataaqo hooyo hoostaadu tahay malab hooyo ee bahaw ku gee hooyo hadhicii qaboobaa hooyo ee bahayn hibayn jira hooyo haa markaan idhaahdaba hooyo horaadkaygu dugaysay hooyo hooda iigu noolow hooyo hooyo ay xumaan iyo hooyo allah ayow kaahay hooyo allah ayow kaahay hooyo dhib iyo ciqaab kaahay hooyo jahannabo kaahay hooyo meel halaag kaahay hooyo holoc kulul kaahay hooyo allah ayow kaa dhowr hooyo jahannabo kaa dhowr hooyo wax kastaba kaa dhowr hooyo allah ayow xumaan iyo hooyo xanuun eebba kaa dhowr hooyo xaqiraadna kaahay hooyo xafidaad ku noolow hooyo dadku kuu xigaal noqoy hooyo qabrigiiyo xabaashana hooyo rabbi meel xun kuma dhiga hooyo xawdkiiyo rasuulkiiyo hooyo janno iyo xariir mudo hooyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waa sumi ibraahim halkan waxaan ka salaamay rati sharafta ka soo qayb gashay xafladda aadka weyn halkan waxaan ka soo jeedinayaa nashiido من توى ماذا ليس بغريو بلشذايتي منيد لو كلام قنانيني اللين مبان الشهادة أغنو أذبينت هذا أود أمر كيسا
udugoonow rasuulkii baan ummadiisanahayo inta uu shafeeca qaaday aakhiro walow noqdaan urkaygan 9 bilood istareexayan hurdo ibtadan jaqaayayo waa dhaxdaydu qaadayo maa imamamaday yaa wadaybtay marto anigoo abal ku siinin eebba ifka haygowsan mantawaa maada laysku boqorayo bulshada intii mudnayd oo kala maqnaanine maalintan bilaaway yamanta falaxayga aabbahay manfacayga adhagiisa waa u hel indha dogsigayga iyo nacameeya aabbahay nafta ay kursamanta adhagiisa wirira waxaan diinta u bartaan ama aanu doortayba dunidan barwaaqay iyo daaca aan ku joogne dulligii iblayska iyo dulli aan ka leexde islaankaygan difaaco anigoo daliilkays mantawaa maada laysku boqorayo bulshada intii mudnayd loo kala maqnaanine guushi oo diyaaraba manta miska ii dultaal farxadayda dorka manta waa inan dabaldago igu caawiyo dadweyne idunbaantumo dadkaygiya waraba dadkoo igu mal farxad mantawaa maada laysku boqorayo bulshada intii mudnayd loo kala maqnaanine. To our beloved parents, thank you for endless love, prayers, sacrifices, encouragement. This achievement belongs to you as much as it belongs to us. To our respected teachers and the managers of Handis, thank you for your dedication, patience, guidance. You have not only taught us languages, but also inspired us to become confident, responsible, and lifelong learners. To our honored guests, thank you for celebrating this special occasion with us. Your presence makes this day even more meaningful. My fellow graduates, let's remember that graduation is not the end, it is the greater opportunity and responsibilities. Let us make our parents proud, our teachers respected, our institute honored. Wherever we go, congratulations, class of 2026. Congratulations, class of 2026. Congratulations, class of 2026. May Allah bless Handis Institute and Language of Technology, our teachers, our branches, and all of us. Thank you. nasiibka xaqiisa ayaanu fiirin doonaa nasiibka waqtiga nasiibka ayaanu eegi doonaa aaway wali ma hayo aaway war ninkaa ubaxa taagaya u yeedho bal ubax dhan buuba taagayay soo dhaweeye soo dhawow sacab waaye ninkaa nasiibka qaybta nasiibka waa idinku celin doonaa sii diyaar garooba soo dhow walaalo waayahay bal lambar dooro magacaa horta xiis cabdi baa la yidhaahdaa bay tiri magac fiicana gabadhow lambarkeed dooran lahayd lambar 8 warba lambar 8 soo tuura lambar 8 bismi illaahi araxmaani araxiim lambarkaani wuu yar yahay kolley armuu waxaa ku jiraa wan yahay bisiga u qabo haye xaggaa u jeedsa xaggaa shacabka xaggaa igu jeedi waa caadi alaab baa ka soo socotaan ku uhi halkaan maxaa kuu soo baxay maasha allah waxaa u soo baxay al saw yara cabsanaysay waxa u soo baxay walla ismale shimbiriyo waraf kala war laba la yidhi waxaa u soo baxay waa idin tusayaaye maxaa ku qoran
قصة آذن إلوبي كريم نوغا شاكا قبل مريبا كوكو جرتو تاسكا تور هل قصة نوغا تورا ساودا إلوبي كريم هذا سر هذا إلو العلا حتى هذا إلوبي كريم وصامين كوكوله حاجة وجه إنها شعب كانوا يجي شعب هل قصة آذن إلوبي كريم وح صامين كوكوله قصة بالنولش هذا بسوا مرتي أما قف كلا بسوا مرتي أما واحد وانا هنقطه بالقصة أنسلا هذا هانو ما هي الماء بكرامانته نوغا شاكي إنت أما كاغا فردنا أدنى وضع ما سنت بشقتنا وحبا كوكو جرا اسكا توري وريبا ما كريزت هاي قف كفرتا ساق عسب ما يلي يا ميد با سمينا سان هوردا ميد دغيستا اك ميد هايا دغيسو اي دغيستا هادي قفكو غعنتا uu karu celiyo ma inuu soo celiyo maaha waa inay shartiga fahmaan horta hadii kale saddexdin oo nifadhiyo saddex kalan keenaya hadaad gacanta kor u taagto maaha inaad hadana hoos u celiso kor u taagaaga ku dayso hal mar aan igu celinaya haday qaldaan mar labaad ragalan soo kicinayo sii diyaar garooba bas qofka gacantiisu leexato isagoo kor u taagay hoos u soo dhiga waan ka qaadaya qofkan soo bedelaa 1 2 3 waay cunad axmed soo idinku soo wareegta وايه هايه واولي هايه اوكي بس جوغرا جوك واولي لما قاعدين ايك هذه وايه هذا صار وريها نوع على لني كو لوا سطح عن بسم الله الرحمن الرحيم مركا كوباد waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحمادا حق لغو سو كوبين اسكاله الله بقر كلي عافيمادكي نبدغليada buuxdayna siiyay inaguna simay xalfadan quruxdiya qaaya badan maadna qale kadib waxaan xaq uga maad celinayaa dhammaan macallimiintayda qaaliga sidoo kale waxaan xaq uga maad celinayaa dhammaan waalidiinta marti sharafta ka soo qayb galayaasha xalfadan quruxdiya qaaya badan sidoo kale waxaan xaq uga hambaliyaynayaa dhammaan ardayda ka qalin bedelanaysa qaybaha kala duwan ee dugsiga barashada luqadaha iyo aalada ee Handis Academy waxaan leeyahay hambaliyo intaas kadib magacaygu waa Fihima Cabdi Maxmed waxaan jeclaystay inaan xagan ka soo jeediyo maanso ku saabsan macallin waxayna u dhacaysaa sida tag macallinkayga allow kaali macallinkiisa allow kaali muuminiinta allow kaali ninka shabaab allow kaali min weyn dunidan malaasan adduunyada magaca weyn leh markuu mawluhu abuuray markii loo muday lugaha iyadoo isku murugsano dadkuna jahli wada yihiin maraasan oo mali lahayn iyadoo mugdiyo la garan malakadii dadku mari lahaa meeshii laga bixi lahaa manficii dadku cuni lahaa bii lagu meeran lahaa macbuudka ilaahay baa macalinka u soo diro miciin uga dhigay naflaha maskax buu adeegsado misbaax buu ifiyayo matariibu haleelay wuxuu yidhi macalinkaygu ilaahow maadadaale muhiimadda nolosha iyo macnaha adiga ay baray wixii maqlayeen ku diidin malaayiin dad baa ahaaday mudhii aad beertayba mudh soo idhi oo ifaaya macnaha noloshuu ogaaday dadkaa magacula baxo dhirtii baa muunadaystay mahiigaankiiyo dabaysha wixii halis midhan iyo masiibadii buu ogaaday dadkoo ninba meelu jeedo dantooda intuu mideeyey si ay isku magansadaan cadowga uga maan galaan dunidan u muquuriyaan iyagu ugu madax noqdaan xooggooda u maadiyaan intaasoo wada muhiima macnaha noloshan xambaarsan maslaxadda aadamuhu aday midigtaada taalla talow meeqaad saraad mujtamacan ugu jirtaa haddaa meel soka ismooday waxaa tahay ma oganaatay magacaad leedihiyo masabka dadka aad ku joogto macbuudkuunbaa yaqaane macallin waxaa tahay muhiim mas-uuliyad baa sidaa misbaaxi fayaad wadaa magool baxay baad wadaa maniya ubax baa sidaa ilays muuqdaad wadaa cilmigaad marinaysana macaan weeyaan asala adaa maatida barbaarshay murtida adigaa wax baray maanti ardaygaaga weeye macallinow macallinkaygow macallinkii aayahaygow muftaaxii dunidanow mahiigaankani arliga maasheeyo wada marow allow magacaa ha jiro mas-uuliyaddaad wadiyo cilmigaad marinaysana allow aan ku meel marnaa aamiin suhayb ha ii soo dhawaado oo inoo haya gabay aqoonta ku saabsan
شيء صعب يمرنا لنسوي. أولاً إلهي بقى محله سوكن كل مية حفلة النات كوقرح بدلنا قاية قيمها له أنت كبعدي وهن مهد علنيا مرت شرفتا يا والدين تكساقي وكشي حفلة النات كوقرح بدن وحن إلهي هنهاي أدبل مهتنتين هل كان يجنا وحنقول مهد علنيا أرضيدا أنت أساساً حدث بريني وما أنت كقل بدني يا دوسيجا هندس وأن لا هاي همبليو أنا مقعد وياي سعيد أحمد مؤمن هل كان وحنا كسوة جدينية كابي كسابسن أقونتا وحنا كبلا ما ياسدتن معمول شرفيو مقع واحد كل هاي ميرها تعلينتيو مسك حمال مركات هاي مهندس أقون له ما انكيس كاشدا أغلقي سمالا كما أرمى ساكي معبود كي أبوريو ربي مهدية مركو حال كل ذي هاي أما ومروكتيو ماشي أدقو قالو استغفرت ما قنصدا مرنا أنكو عاسني سيدا مخلوق غايز مهما مقوين با يعني هيدو حوقها روح نفتيسا معمولي ميل مريتيسا ميد كلانا كداري كرا ماريا نقون كرا تلميغان بيحين كرا مهما كلا تري أقون سيدا مايايغا مهيغان كروبكا إركا أو ماروقا مالن أيو هورتا جهليغانا أميرا ما فعيا سريدنا ملكيغا ياشا معناها يو جيددا أدان كون مانفرو ملقيه كرامدو أقوم بايو مغانتاي مصباح يا نور مدد يا قرمد مولى إبهينو مغنسيا دومها مرتكا لا waxay tiri cilmiga ood ka marantahay qur'ud mararooba mugdi ruux gudayaad muuqaalkiisa leedahay miftaaxa aqoonta taala dunida moolka ah masterkeedu wuxuu yahay musxafka quraanka iyo mustafa rasuulka xadiiskiisa meel maray macrifada siiday maxamed oo abidka arshiriya maaris maarayaasha durugsan kuwa kula midkee tagay cilmiga la maal gashay muruq lagu lamaanshay meeshaas ku gaadheen maansadan maan leeyda waxaan kuugu meeri cilmi baa maqsuud iyo muunad iyo barwaaqo leh mudnaan iyo hufnaan iyo macaan iyo wanaag iyo macaash iyo wanaag bale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله تبارك الله آدي بانوغ فرح سنة هاي إلى كمين نغضو كسوق يبقلو حفلة سيدة قروح ذا بدن لإقايها للوسو أقاسيمي معلمين حول كرأة ددال بدن حافظة مقعية سمعات كله إيا أرضي أي صوص صارين والد أي لشقيان إيا برشدة كلا إيا أصحابته ودوبها حفلة سوق قرحيين روايات آد رنتي قلبي تابضوا حقيقة جرتا وعويان كهادليسا maxaan ku dhahdaayay ereyada ay adeegsadayaan ay ahayd ereyo fadhiya oo miisaan iyo macno ku fadhiya inoo soo diyaariyay iyo arday marka ay stage-ka soo istaagaan kalsooni iyo degenaanshiyo iyo akhlaaq ay ka muuqato waan uga mahadcelinayaa waxaana leeyahay boqolkiiba boqol waan ku faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo anaan arko xaqiiqada dhabta ah ee aad haysaan Handis Institute of Languages and Computer Training Center hambalyo waalidiinta sharafta leh macallimiinta kale ee asxaabta ah macallimiinta dugsiga Handis ka hawlgasha Cabdiweli Sadaam Hussein Mubarak Maxamed iyo Maxamed kale kulli wala maxamed waan filayaa dhammaantood toddobada macallin ee da'yarka ah ee dugsiga ka hawlgala waxa weeyaa waxaan ku salaamayaa salaan qiimo iyo qaayale waxaan salaamayaa macallimiinta kale ee ka soo qayb gashay oo ugu horeeya saaxiibkay Dr. Cabdiweli oo kulley dugsiga Rays ka socda waxaan salaamayaa macallimiinta kale ee ka soo qayb gashay macadada inta badan aan xasuusto macadka isagana luqadda Ingiriisiga sida fiican loogu barto oo ay gabdho sharaf leh ay maamulaan macallin Istiraax iyo Nasra waxaan salaamayaa maamulaha dugsiga Halbeeg waxaan salaamayaa macallimiinta kale ka soo qayb gasha waxaan salaamayaa intaan muuqiya magac isku naqaan waxaan salaamayaa ardayda warbaahinta iyo cid kasta oo xafladani ka soo qayb gashay salaan kadib kulley hadalka habadin baa la yidhi waxaan maanta meesha u soo istaagnay waa inaan u hambaliyeyno farxadana la qaybsanno ardaydii waqtiga badani ka soo baxay
ee dhaxanta roobka iyo dulqaadka soo muujiyey muddada dheer ay wax soo baranayeen maantana midhihii haya waxaan idin leeyahay hambalyo dadaalkiinni mid ka mida waad ka midho dhaliseen markhaati baananu ka nahay hambalyo 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 intaasi waxaan raacinayaa oo keliya sidaynu wada ogsoonnahay bulshooy dugsiyada luuqadaha lagu dhigto waxaa lagu baraa luuqadda ingiriisiga oo fura u ah shay kasta oo maanta dunidani ka jira sidaasi darteed ardayga lagu barbaariyo ama si fiican u barta oo fahma oo waxa weeyaan fikrad fiican ka qaata ama si fiican uga faa'iidaysta barashada luuqadda ingiriisiga oo inta badan uu qofku markuu baranayo challenge badan uu ka maro way ka dhex muuqataa saamaynna way ku yeelataa waxaan maanta uga faa'iidaysanayaa madashani aadka loo soo sharfay anoo hadalkayga soo koobaya waalidka qiimaha badan ee runtii ardaydaasi soo barbaariyey kuwa ay faamilka yihiin ee kala soo qayb galay iyo dadka waayo aragga ama aqoonta leh ee meesha fadhiya dhammaantood 3 marxalado ardaydeenna ay maraan insha allahu tacaala inaan ku soo koobo hadalkayga oo ah xaqiiqo jirta oo aan la iska indha saari karin sidaynu ogsoonnahay maanta deegaankeenna ama gaar ahaan xaafadeenna waxaa ka jira challenge adag oo inta badan dhallinyaradu maraan caqabadaas ka jirtaa waxay tahay dhallinyaradu 3 stage ama 4 stage ayay maraan sida ay daraasaadada markii lagu sameeyey soo saaraan waa 11 sano cabir ahaan ama qiyaas ahaan oo ardayga haddii uu ilaahay hagaajiyo isaguna uu noqdo mid wakhtigaasi si fiican looga faa'iideeyo oo macallin fiican iyo waalid fiican hela uu ka badbaadayo dhibaatooyinka ama hagardaamooyinka uu tahriibku ugu horeeyo balwadda iyo xashiishadda ugu horrayso shaqo la'aanta ugu horrayso waa da'da 10 jir ilaa iyo 20 jir inta u dhaxaysa haddii ardayga gacan adag lagu dhigto maskaxdiisu xilligaasi kuma filla waxaa ku filan inuu habeenkii soo hoyan waayo inuu kubad iyo game iyo waxyaalo kale oo wakhtiga ka lumaya isaga lumiyo inuu waxbarashadii kaga hadho waa saaxiibadii uu la soconayay kaga hadho oo uu wakhtigii ka dhaco 20 sano kadib markuu 20 gaadho fursaddiina uu iska dayacay dib iguma noqon karo waxbarashadii kuma laaban karo saaxiibadiisii dhaafayna lama socon karo moraal uma helayo waa laba mid unbaa u soo bixi inuu waddankaba isaga tago uu xaalad adag naftiisa geliyo iyo inuu maxaanku idhahdaayey balwad iyo siyaabo kale u leexdo iyo inuu xamaal noqdo muruqiisa isticmaala intaanba u soo hadhaysa laakiin ardayga xilligaa da'diisu maskaxdiisu ayna ku fillayn ee da'da aan sheegnay ah si fiican waalid fiican iyo macallin fiican helo macallinkiiyo waalidku iska kaashadaan wuxuu noqonayaa arday hadhow toole gaadhay xilligii maskaxdiisa isku maamulayay iminka tusaale ahaan bal waxaad sheegtaan aan idin weydiiyo su'aale ma aragteen arday jaamacad ka soo qalin jebisay oo habeenkii xaafadaha dhex wareega ma aragteen arday ka soo baxday waxa weeyaan jaamacadaha oo waxa weeye habeenkii xaafadaha dhex wareegaya ma aragteen arday jaamacadaha ka soo baxday oo gidaarada fadhiya ma aragteen arday jaamacadaha ka soo baxday oo maxaan ku dhahdaayey anshax aan wanaagsanayn samaynaya maya caqligiisaa ku filaaday shaquu doonayaa naftiisa inuu horumari doonayaa laakiinse waxaad aragteen arday 8aada 7aada fasallada dhexe ah oo waxa weeyaan kubad wakhtigiisa ku luminaya maalacnimo kale wakhtigiisa ku luminaya maxaa dhacay waa xilligii uu qabashada u baahnaa marka hadal badan kulley looma baahno aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin dugsiga handis insha allahu tacaala wuxuu ka mid yahay dugsiyada ku soo kordhiyey waxa weeyaan fikrado cajiiba oo ardayga luuqadda ingiriisiga kombiyuutarka lagu bari karo insha allah intiina maqlaysa ee madasha joogta waxaan idiin rajaynayaa insha allahu tacaala inaan ka faa'iidaysano dhallinyarta hal abuurka leh ee dadaalka waxa weeyaan la saaxiibka ah ardayda qalin jebinaysana mid un baan leeyahayo adu haddaad dugsiga ka qalin jebisay kama dhigno waxbarashadii o dhan inaad dhammaysaye dugsigaaga sumcaddiisa inaad kor soo qaadod macallimiintii la shaqayso oo waxa weeyaan garab istaagtana waa laydinka rabaa waalidkuna sidaas oo kale saaxiibada kale aan isku shaqadan ahayna aad baan u salaamayaa dhammaantiin waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu oo ka faa'iidaysta allah inaga dhigo waxaa kaloo iyadana u yeedhi doonaa sidoo kale macallinkayga qiimaha badan leh macalin si qurux badan ha laiga soo dhaweeyo oo ah dugsiga rays ha laiga soo dhaweeyo macallinka sacad بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu horeyn waxaan jecelahay inaan u hambaliyeeyo ardayda qalin jabinaysa macallimiinta waalidiinta iyo cid walbo si uun tacab ugu lahayd ardayda maanta qalin jabinaysa waxaana leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo
intaa marka xigta hambalyada haddaan kaga baxo waxaan jeclaan lahaa inaan baraarujin sameeyo inkastoo macallin cabdikhadar saaxiibkay uu baraarujinta ugu fiican sameeyey oo wixii aan odhan lahaa buu dhameeyey waxaan ku yaro dari lahaa uun maadaamay waalidiina nala joogaan arday badan dad badan mustaqbalna meesha fadhiyaan inaan ku yaro daro muhiimadda sida gaarka ah ay ugu leedahay waxbarashada luqadda ingiriisku luqadda ingiriisku waa luqadda uu ku baxo waxbarashada guud ahaan sidaas darteed ardayga aan luqadda ka dhisnayn waxaa caqabad ku noqonaysa inuu fahmaba inuu waxaan wax ka keenay iska daaye inuu fahmo adag marka luqaddu mar kastood luqadda ku fiican tahay waa mar kastoy fursadaadu badan tahay oo aqoontaada aad kor u qaadi karaysid meelna aad ka soo bixi karaysid mustaqbal ifayana aad yeelan karayso marka waxaan jeclaan lahaa waalidiinta inaan maanta fursaddan uga faa'iidaysto xaqiiqadu waxa weeyaan ilmaha waxbarasho ku liita marka la leeyahay anigu waxaan aaminsanahay faktarka ugu weyn ama waxa ugu weyn ee keenaa waxa weeye marka hore ilmuhu luqaddu ku liitaa inuu xisaabta fahmo waxa ka horraysa horta luqadda inuu yaqaan waayo wixii luqaddiiba ku baxaya su-aasha markaa luqadda lagu weydiiyo haddaadan garanayn sideed uga jawaabi markaa kula dadaala carruurtiinna in luqadda maad aragtay ay si fiican u bartaan iyadoo guud ahaanba waxbarashada ay muhiim tahay in lagu dadaalo maadi iyo diini labadaba waa in dadaal laga sameeya waayo carruurteennu waa dhakhaatiirta berri toole waa kuwa mustaqbalkeenna hoggaamin doona marka maanta inaan wax gashano carruurteenna oo laga warhayo oo ay waalidiin daba socdaan weeyaan ardaydana waxaan leeyahay waxbarashadu kuma dhammaato hal maalin ood qalin jabiso maalintan sidiinana kale u qalin jabinayay aad baan u faraxsanaa farxaddu xoog bay iga badnayd kalsooni xaddaafaan qabay waxaan aaminsanaa inaan wax walba garanayo laakiin muddo kadib markaan macallin noqday shaqeeyey waxaan ogaaday in wax badan iga dhinaayeen xilliga oo keliya ahayd un farxadun waxa igu jiray marka waxbarashada halkaa inaad ku dayin dadaal la sii muujiyo macallimiinta iyo dugsigaba dee waxay muujiyeen mataqaanaa horumar weyn oo la taaban karo inay intanoo ardaya soo saaraan farxad bay noo tahay waan hambalyaynaynaa waan bogaadinaynaa dhammaanteen waxay mudan yihiin inaan ku nacno hambalyo 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 waad mahadsantihiin aniga farxad gaar ay tahay macallimiinta badankooda macallin waxu soo dhigay baan ahay macal ardayda kale ee meesha fadhida qaar badanoo waxu soo dhigay baa jooga marka waxaan u malaynayaa dadka ugu badan meesha anaa kula maanta cidna iguma qabsan karto marka si guud iskuulka waxaan leeyahay hambalyo 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 waad mahadsantihiin gaali karo bal dhinaca hablaha macallimiinta ka mid a ayaan jeclay haatan inaan soo dhaweeyo gabadh ka mid a macallimiinta ahna runtii macallimiin aan dugsigiisa horey ku sheegay aanan madaarista dhigin bal ah gabdho dhiga luuqadda habeennimana dhiga gabadhaas istareexshide ayaa jeclay balse qurux badan inaad iga soo dhaweysaan si iyadana kalmadayaloo kooban ay nooga soo jeediso sacab bolida kama hayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديب هراي وحلو يدي هل بقى حركة سامو جوجلتو أنا دتك وحيسو دقي بقى حاجة نشوجا لما أنا دمي وحنور لهذا سو وحن لا يهاي دمبر كي عانها وحابي دردور صدا نينك الدنيا دقشة كده دالة وليجي أو درجة الدنيا ذا نين دالة باهلا سو أرددان همبليو دريا همبليو قلن شبياشة لو قلن شبياشة يلقى قلن شبياشة با بليز ددالة هذا يبلو ينوت هاي سي ددالة ددال كينا سي لبتشبارة انت أصلا كسوكو بيا hablow markaa khudbada idin qaban muxaadaro weyn hadda idinma wadi karee waxaad iga soo dhaweysaan macallimad iyaduna ka mid a macallimiinta loogu jecel yahay dugsiyaadka oo ah macallimad tarbiyo macallimad runtii aan sheegi karin waxa ay barto awlaad badan soo saartay warida cali axmed waxaa layga soo dhaweeyey so qurux badan soo dhawaayaa leeyahay walaashay أولا مركز روح عندكم سلام يا سلام الشرعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومعنا ورد علي براءة كان دوكسي هيكسي يا مدارسك قرآن كالقرآن أنت دوديت لا محاهري لا مح أنا هري لا محل محاهري والله الله سما ولا صاه الله هذا نور السود ميه أنت لهذا الباع هذا اللي تصالح وحنوقفنا روايد لنا كسعود روايد قاربة وأركي قصل قاربة وأركي حرام مثل حرام نسي وقت لمس روايد وحنو دي فريم بوحدة كو وحي كان ليسي هذا نفير سنة روايدي عن نحر كي أما مين بنتي كان ليسي هذا كان الله
waxay ka hadlaysay in waxbarashadu muhiim tahay laba inuu ardayga saaqiday oo hadhow shalna iyo qoomo ku dambeyn doono saddex hooyadii calaacalaysi inay intay gabadha u dirsatay hawl maxay tiri na xagee ku maqnayd maxay gabadha ugu jawaabtay waxaa la ii tilmaamay inaan markay tiri way xanaaqdo hooyo laakiin maxay ka dambaysay waxaa la ii tilmaamay meel wax ku barto hooyo maxay tiri marka hooyo meeshaad rabtid waxbarasho orodoo soo horso waxbarashada marka waxa leeyahay waalidku inuu jecel yahay mar walba ilmihiisu inuu heer gaadho ilmihiisu inuu meel ka soo baxo marka hadal iyo dhammaan riwaayadda haddaan usii fiirsano riwaayadda nuxur iyo waayo aragnimo iyo tusaaladii naga dhinaa noo dhammaystiraysay laba riwaayadda waxay naga rabtay in haddii jaad iyo sigaar iyo bunka aan u badanay oo daasadaha dhalinyartan ku fadhiyo nin weynoo suul xidhan oo daasada ku fadhiisanayd arkaysaa suuqa dhexdeeda bunkan inuu naga noqday balwad bunka intaad dul fadhiday inaad naftaada wax wanaagsan u samayn karaysid marka waxaan leeyahay anuu hadal ku dheeraanin fariin ardaydaan siinaya fariina macallimiinta fariina waalidiinta ardaydaan u horeysiinaya maanta madashan iskale arday waxaan leeyahay haddaad meel ka qalin dhammaysay ama ka qalin bedelanaysid weli kow ma joogtid hore u soco waxbarasho marnaba hal erayoo baratay beri umaad u ahay waxbarasho haddaad baratid beri maalmahan ka mid ay ku anfici doontaa mar walba waxaan leeyahay 60 jirna gaadho oo waxbarashaha ka hadhinaa qalin jebintu maaha inaad dhammaysay hore u soco diin iyo maadina gacantiina ku qabsada mar walbana fariinta u dambaysanaysiina waxa weeyaan mar walbo tallaabo qaadaysid ha isdhihin maxaad ku halaysaa muxuu ilaahay kaa aaminayaa ingiriish baan barayaaye ma waxaan u baraya inaan ummadda ku anfaco mise inaan hunguri ku helo ma waxaan u baraya waxaan inaan adduunka iyo aakhirada wax ku indha ii noqdaan mise inaan wax ku cuno kow haddaad maadi bartid iyo haddaad diini bartidba laba jeeraba ajir baa kuu qormaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi luuqad walba barta si aad isku fahantiin ama ummad u fahansiisin fariintaan ii dhiiba soo maa inaan ingiliish baranno inaan baranno kombyuutar inaan baranno carabi inaan baranno tarbiyo inaan baranno amaariha waa sunnii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka waxaan leeyahay arday mar walba wax barta waxbarashada ha la ilaaliyo ha lagu dadaalo waalidka laga dhaadhacsiyo in waxbarashadu muhiim tahay talabaadaan siinay waalidka waxaan leeyahay mar walba ilmaha wax barta faa'iido mooyin faa'iido darraha ka sugin walo afjayna hadduu barto luuqaduu doono hadduu barto farsamo intaba faa'iido mooyaan faa'iido darro male waxbarasha waxaa sheekh mustafa wuxuu yidhi haddaad adduun rabtid waxbaro haddaad aakhiro rabtidna waxbaro mar walba waxaan leeyahay waalidka meesha fadhiyo waxbarta carruurtana mooraalka ka dilina macallin bay noqoto oo bulshada aasaaskiisa ah haddaan macallimiin dhammaan aan wadanahay naftayda idinka waxaan dardaaran idiin siinayaa ilmaha liita in lala saaxiibo ilmaha liita macaan haddaan nahay ilmaha xariifka ayaan saaxiib la nahay ilmaha liita lala saaxiibo ilmaha hooseeya gacantaa la qabto ilmaha mar walba mooraalkiisa la dhiso macallimiinow marya laba waxaan dhahayaa ushaa la iska daayo ilma tuumba waxa kuma barto haddaan macallimiin nooleyna dadka jaalidan ka saarayna tuumbadii soomaaliyadii hore iyo ushii aan iska dayno marka waxaan leeyahay nebi maxamed ku wada sallino sala allahu calayhi wasalam madal la isku yimid waxaa u khayr badan baa madasha nebi maxamed lagu salliyo waxaan idinka tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu laabto bal dugsiga handhis inaan dib ugu laabto waxaa ugu horeeya oo aan jeclahay madashan maanta inaan ku soo dhoweeyo macallinka iigu horeeyo oo dhabtii aanan marnaba baaxaddiisa iyo runtii dadnimadiisa iyo qiimaha uu leeyahay aanan marnaba halkan ka sheekayn karin runtii dadka iigu qaalisan adduunyada ka mid a xataa walaalaha aan leeyahay xataa mararka qaar isla malaa uu kaaga qiimo badan yahay macallin sadaam axmed maxamed hallayla soo dhoweeyey si aad iyo aad u qurux badan waxaana jeclahay sacab iyo mooraal laygula soo dhoweeyey macallinka insha allahu sacab السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي كل هذا البلد هان مبحشو وأنا صاب ساني وقت جنوي نقد عي سدح قطب أو كوبن أو بلارنين بان حين كشيجيا أنا جو كفايدي سنية مدشن آد كو قروح البدن وحن هالكرباينا نقوم هذا عليو والدينتي أنا جاي دلي لبدي يسوى برباريي هو يا أب وحن الله آد بدو مع سنتين إن كستودي مقنتين waxaan xaggan oo kale mid labaad uga mahad celinayaa ardayda oo isugu jira gabdho iyo wiilal waqtiga quruxda badan ee soo bixiseen dadaalka iyo juhdiga aad soo bixiseen
halkan waxaa idinka mahad celinayaa aniga oon magacayga mar labaad sheegin iyo mar saddexaadba macallinkiinnii marna walaalkiin idinka weyn oo idin leh gabdho iyo wiilalba hambalyo 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 ardayda haddaan ka imaado qodobka saddexaad aan rabo inaan ka hadlo waxa weeyaan waa macallimiinta aan in badan soo wada shaqaynay waqti badan soo wada bixinnay aniga garbahayga aan kala qaaqaadi karayn wax badan iga mudan macallimiin walaalayaal waxaan idin leeyahay juhdiga iyo dadaalka aad bixiseen maanta midhihiisii ayaad goosanaysaan intan iyo in ka badanba waan idinka fadhiyaa anigoo dhinac idinkaa idinlada dadaalaya macallimiinta waxaan rajayn lahaa idinkoo codsigayga tixgelinaya inaad hal mar u istaagtaan dhammaantiin sharaftoodana aad muujisaan ha loo kaco marka macallimiinta dhammaantiin u kaca stand up ha loo istaago ha loo istaago macallimiinta ha loo istaago macallimiinta ha loo istaago macallimiinta ha loo istaago ha loo istaago aad baan idinka mahad celinaya sida quruxda badan ugu istaagteen macallimiinta mahadsan idin saa aqbashana codsigayga ha lay fadhiisto idinkuna idinkoo mahadsan sidoo kale waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan inta qaadatay ama isticmaasha naymka ama magaca loo yaqaano macallinimo macallin micnihiisa lama qeexi karo lamana soo koobi karo waxaan leeyahay qof kasta oo qaatay taytalka ama magaca macallinimo walaalow meel kasta ood ka shaqaynayso waxaan ku leenahay mahadsanid shaqadaana hore ka sii wad hadalkayguna intaas ayuu ku gabagaboobay ardaydan waxaan leeyahay waa idin jecelnay dhammaantiin yaan la rajo dhigin guushana la sii wado waxaan jeclaan lahaa waxyaabo yaroo kooban ugu talagalay macallimiinta in aad iila soo dhoweysaan macallinkaan u yeedho magaciisa ayaan ku dhawaaqaya waxaan rajaynaya aad si qurux badan iila soo dhoweysaan way dhacdaa intaan wada shaqaynno inaad iga xanaaqdo way dhacdaa inaad waxaad kaa farxin aan sameeyo way dhacdaa inaad waxa weeye mararka qaar fikirkayga ka soo horjeedsato way dhacdaa inaan waxyaabo badan isku agmarno wixii oo dhan adigoo iloobaya cafis badan fidinaya shaqadeenna iyo quruxdeenna fiirinaya horumarkeenna ka shaqaynaya anoo cudur daaranaya hal maalin haddaan sameeyey wax aanad ku farxin waxaan leeyahay walaalkay iga raali noqo cafisna ii fid insha allah waxaad ila soo dhaweynaysaan xuseen cabdi axmed soo dhow brother xuseen cabdi axmed حسين عبدي أحمد welcome way kooban tahay in badan waxa weeye waan wada shaqayn doonaa haddii aad caafimaad qabto magaciisa oo saddexan waxa weeye mubaarak xasan cumar yes come on bro si fiican ugu sacabee isagana aad ha loogu sacabee macallinkaas aad ha laygu sacabee sidoo kale waxaan xagga rabaa inaan isagana uga yeedho anoo hadalkayga dedejinaya waqtigu waa inagu socdaa waa idinka raali gelinayaa macallin howlkara inta macallin aan arkeen soo wada shaqeyna macallinka ugu howlkarsan ugu dadaalka badan weli waxa weeye dabeecaddiisa iyo deganaantiisa aad u qirayso waxaan leeyahay brotherkaygii waa maxamuud maxamed xasan si fiican igu soo dhaweeya macallinkaas yes si fiican lagu soo dhaweeyo sacab 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 sidoo kale waxaa xaggan ii saaran macallinka ku xiga oo ka mid ah macallimiinta Handis Institute of Languages and Technology waa macallin isaguna aad u daayar la mida macallinkii hore ee soo kiciyey aadna aan u jecelay runaantii aniga gacanteeda midiga mar walbana waan kugu faani doonaa isla haddana waan kugu faanayaa aniga oo ka qiraya bulshada horteeda waxaan leeyahay brotherkayga iga yaraa soo barbaar garabkaygana ha ka tegin insha allah dilay raali ka noqdo maxamed cumar cismaan sacab هلا سعبي وصك عن أردينا معلكة سبحان الله وسعبيه سعب 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 واي waxaan halkan rabaa inaan uga mahad celiyo isagana ilaahay ka sokow iyo labadii aniga ay soo barbaariyey ee hooyaday iyo aabbahay suurtagal ka dhigay kana dambeeyey iguna dhiirigeliyey maanta inaan halkan ka soo muuqdo igu soo barbaariyey macnaha inuu igu dhaliyey fikirkan yidhaahdaa you can do this one waa samayn kartaa ee samay buu yidhi mar walbana shidaalkayga enerjkayga ah yes waxaa la yidhi shaah bilaa sonkora waa maxay shaah bilaa sonkora waa maxay waa kulley wuxuu noqon karo waa fahmi kartaa ma malaynay soo ma marka shaah bilaa sonkora waxa ma dhaameen hadduu ninkaasi joogin waxaan leeyahay brotherkaygii iid mukhtaar cismaa
E Mukhtar Isma si fiican lagu soo dhaweey marka aad lagu soo dhaweey ninkaas uu si kafta badi hal la shaqeeyo insha Allah qofkii la shaqeeyo waxa wax badan ku faa'iideeyo insha Allah marka loo sacabeeyo halkan waxay igu saaray hal macallin oo xoogaa dabeecadaha qaar sigeegnahay meelaha qaarna isku diidnay waxaan leeyahay sheekh waa fiican tahay dabeecadaha qaar maadaama soo galay intaan isku diidnay hagaaji aan isku ekaanay waxaan leeyahay waxaa laga yaabaa dadka qaar inay si kale u fasirtaan marka saas maaha waxa weeye macallin aad u qiimo badan macallin aad u wanaagsan weeye mahadcelintiisa waxa weeye wuu iga qabaa kolley inta badan waxa weeye maba kala harnaba intan dambe ma aqaan waxyaaba badan baa suu kaa xidhan maan malaynayaa ilaahay khayraa ka dhigay si fiican ee loo soo dhaweeyo macallinkaas waxa weeye macallin aad u daayarsay laftigiisa ani ahaan inuu yar rajeynaya kolley cabdiweli yuusuf ibraahim cabdiweli yuusuf ibraahim si fiican loogu sacbiya macallinka welcome si fiican loogu sacbiya macallinka sacab 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 بسم الله أولا إلهي بمحط سكاله ما هذا أردن وسقناتي إنه سورة قليل إن أن هالكن كسو قارنو عافمات نبض يبرواقو مالين تنوعه مالين آدي نوعو قاليا دمانتين مالين أهان أرضي أهان يردمان والد با وحليا هاي إلهي بمحط أردن أي وسقناتي marka xigta waxaan u hambalyeeyaa dhammaan ardayda ka qalin jabinaysa macadka Handis Institute of Languages and Technology waxaan leeyahay maanta waa maalintiinii waa inaad ku faraxdaan dhammaanteeduna waan ku faraxsannahay inaad halkaas aad soo gaadhaan waxaan idin rajaynayaa halkaas iyo meel ka badanba inaad gaadhi doontaan insha Allah intaa ka bacdi waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalka waa la dhameeyay waxaan ardayda u leeyahay dadaalkaad muujiseen waa mid aan hadda aan aragnay aan arki doonno insha Allah aad baad u mahadsantihiin dadaalkiina halkaa ka sii wada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xuseen cabdi axmed si qurux badan oo sharaf leh hala iga soo dhaweeyo macalinka waa walaalkayga labaad waana garabkayga labaad labada garbood sidii cumar sidii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam abubakar iyo cumar garbihiisa u ahaayeen ayaa aniga sadaam iyo xuseen garbahayga u yihiin kuwa kalena waa qayb xubnahayga ka mid a marka macalinkayga soo dhaweeya leeyahay بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب وحان مهد علينا معلمين تقاليقا وقتك قوصة هوري إني حفلة نغلصة قيب قلان والدين تشرفت له يدمان أردد قلن تبني أصحاب تودا وحان إلهي واد مهد سنتين واد مهد سنتين واد مهد سنتين مهدنا كدب كلي هذا المعلمين تبع دميي ونسوق بجبين كلية وجهرين وحن سكلي الله أنو هم بلينيا أردد كقل بدلين إسا معدك برشاد اللقطها إيو كمبيوتر كأ هندس وحن الله هم بليو بعد أتكسو قاعدين مالين تنقرح بدن له ددان كلي ardayga inuu stagekan soo gaadho xaalad fudud ma waxaa u baahan tahay dadaal badan baa u baahan tahay fikir badan baa u baahan tahay waqti badan baa u baahan tahay waxay soo horeen ardaydu waqti badan bay soo horeen habeen iyo maalin bay soo socdeen balse laakiin lastly waxay taagan yihiin maalintoodii bay taagan yihiin markaas si guud waxaan iga codsanayaa inaad ardayda qalmadelanaysa aad hal mar u sacabaysaan hal mara loo sacabeeya ardayda ardayda hal dardaaran baan siini dardaaranku waxaa weeyaan aqoontu ma dhammaato wax dhammaada ma aha balse laakiin fursada ayay furtaa hadda waxaad barateen qaybta aaladda computerka iyo qaybta luqadda ingiliishka waad barateen ma aha inaad dhammayseen ood professional ku tihiin ma aha laakiin waxaa la rabaa inaad sii wadiin baa la rabaa keliya hadda albaabay inii furtay albaabkaa inii furtay inaad si fiican ugu geshiin baa la rabaa bay ka dhigan tahay ardayda qalin jebinaysa
tiradoodu waxaa weeyaan waa 40 arday weeyaan 40 arday waxay iskugu jiraan qaybta computerka iyo qaybta luqadda bay iskugu jiraan qodobka ardayda haddaan ka imaado waxaan yara dul istaagi waalidiinta kolley waalidiintu waa tiirka bulshada weeyaan hadduuna waalid jirin maanta maanu soo gaarnayn maalintaa quruxda badan leh waxaa ka dambeeya waa waalid weeyaan ilmaha waxaa daba taagnaa waa waalid weeyaan sidaas darteed waalid waxaan ilaahay waad ku mahadsan tahay wada shaqaynta aad nala yeelatay ilmahaaga markaas aad garab taagnayd hiil iyo hoob aad la garab taagnayd waxaan si kala ilaaba kaaga mahad celinaynaa muddada 2 sano ee qaybta computerka ee qaybta Englishka afwan iyo qaybta computerka ee muddada gaabana inta aad la soo garab taagneedeen waalid aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin inta in ka badan waa leedin ka rabaa kullay waalidiinta mahadnaqoog mid la soo koobi kara ma aha laakiin waad mahadsantihiin sidoo kale asaguna waxaa muhiima macallimiinta macallin kollay maalintan quruxda badan la cidda ka dambaysa waa macallin weeyaan hadduuna macallin jirin maalintan quruxda badan maanu soo gaarneen marka macallimiinta aanoonan kala reebaynin si guud macallimiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin maalintaa quruxda badan leh inaanu soo gaarno idinka ayaa ka dambeeyey 1,000 jeer aad baad mahadsantihiin abaalkiina midaan gudi karno maaha bay ka dhigan tahay intaa haddaan hadalkayga ku soo gebagabeeyo waxaan si guud idinka cudur daaranayaa in waqtigu nagu yaraa xafladdu ay xilli dambe bilaabatay sidaas darteed ay suurtagal noqotay inaanu habsaano marka waalidiinta sharafta leh waxaan leeyahay cudurdaarkaas hana loo qaato naga raalli ahaada haddaad hawlo lahaydeen ubadkiina baa ka muhiimsan dib baanu u dhacnay raalli ahaada kolley abaalmarinihii baanu bilaabaynaa ardaydu kolley intaa wax soo barinay imtixaan baa laga qaaday imtixaanka ay galeen waxay isku dhex jiraan si kasta oo la iska yaqaana imtixaan marka la garo arday baa kaalmaha soo gashay soo ma marka ardayda kaalmaha soo gashay insha Allah ardaydeena kale waa inaan u hambaliyeynaa oo nu garab istaagnaa oo nu hambaliya dhahno